أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغينا العزة في غيري أذلنا الله. الله سبحانه وتعالى ما ركتي أيا نقو عزية أو نقو شرفي إسلام كان هدي أنكر دينو ميلا إسلام كأهين عزي إيا شرفنا والله أذلنا الله. إله وندليني مدلي بقى نوع لمن ولا ليل إله بقى إن كل شيء مدلي أيا نوع لمن غير ودين سلام يا سلام كده محنو ربنا إن ندل إستهانو قبلنا ولا شيء نسد خضب أي كهذا شيء لبا قيبنا وجسور جدنا قيبنا وكره حسنا قيبت أي كهذا الشيء وجوهر سوى خديجة ديري قيبت أسنو حكي لسان إسلام بجينا مرة بدأ دمك علنو دتك السوشيال ميديا عن كاي ما ضحضة أما الشخص أديك أتغان أركت ده أكيد ستتقف كم إذا فاميلي جسم كاويديس أو أتر هذه أورهب الأمي بلاي سيد وأركت أقف كفاميلي جسم كوشة كا أركت ده هي ستماين أركت كده أنتم مرة هالك تاجن تاي وحنا دوب والله من النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركودا خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي خديجة ديري واحد يعظم مسؤوليتي دت كذا وحي مصيبة يظلم وهو يسين غير كذا سيدا درتي قفت مسؤولة معي إلى داو قبل وحي مرة بعد لا وأنا ماشي أنا بسوي جد دلني ما نومر من ولا ليل وحيرك بعدين ولا ليل عرب أيانا لنعسية ولا ليان وحنا الجير عرب ما تتهين أبو هلا بحننا أبو هلا سميننا عرب ما تهين أفريكان باتهين ولا ليال do you really think قال هذا إني أفريكان كلا إني أصحان أو سميسو no وما سميسو ويدو ليستا وين جميستا وات أركتين ولا ليادتك أفريكان أمريكان وحلو سمين قبل ولا ليال وحي كل هذا هاي عربتي أيانا العسية إيماجي أبو سبحان الله دين أيانا كاجا دجسا ولا أنا عرب منين وحنا نبض مسلمنا الصومالي بينو كان هنا يصير قفك أستراليا iyo Mareykan iyo Canada iyo Asia ku dhashay oo muslimka oo kala ayaan nahay walaalayaal inay taafantid waa muhiim tan ugu dambeysay gabadha soo qaadatay waxa kamid ah abuuga walaal waxa loo diiday musiibada Soomaaliya ka taagan waa waxyaalaha ay ku yihiin oo kala ayaaba kamid ah magaca abuuna waxa laga soo koobi gareeyay ama laga soo maanguuriyay wadama aan la aqoonin subhanallah mid ugu dambeysay gabadha soo qaadatay waxa kamid ah yani African American waa lagu meesan jiray bay ku leedahay 2022 qarniga 21 anagoo taagan 6 bilood ka hor ayay ahayd gabadha ayaa video laga duubay Dubai afka ayagoo laga xaaraya uga xaarayna sheegtay in muslimiin haddana Carab yihiin walaal diinta xagee uga taa horta inaynu fahno waa muhiim tan ugu dambayso waxay tahay walaal bariyahan waxay jira dad barteen diintii barteen qofkii wuxuu rabo adiga kaagada yani wuxuu u turjumayaa sidoo isaga rabo kale marka si aan musiibadaas uga badbaadno waa inaan diinta barano waxa kale oo jira dad marka ama life aqoon ama lagaaga shakeeyo masaajidada markaad kula kulantaan waxa jiro adiga ku arko si iska kaagado ama si iska ka dhaadhiciyo qofku wuxuu sameeynaya maaragtay sunna badan buu tukanayaa yani ma sha Allah qofkaas gurigiisa markuu tagana ma sameynayo wixii masaajidka ku sameeyay sunnooyinka salaada ku tukanayo gurigiisa kuma sameeyo xadiis qusdan ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uga hadlaa abdi lama jacaltani ahwana lin-naadirin ilay astahyayta min qalqi wa lam yastahyi minni kuwan aniga abuuray baad ka xishoonaysaa isku hoos dhigaysaa aniga abuurayna iga ma xishoonaysid marka dadka noocaas oo kale iyaguna way soo bateen subhanallah marka waxa sameeysan walaalayaal diinta inaad barato wax kaaga dhow ma jirto si aan musiibada uga baxno qof kale diinta hoos fadhiisan bara adiga insha Allah barnaamij midkan la mid intaan kulmi doono sidayna badgaliyo assalamu alaykum